kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni gaas iyo gorfaynta buuga oo toddobaadkiiba hal habeenada kala socotaan muuqbaahiyaha MMTV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni gaas iyo gorfaynta buuga oo toddobaadkiiba habeen ka baxa muuqbaahiyaha MMTV. maantana waa barnaamijkii labaad oo aan ka qabanayo Sayid Axmed Maxamed Yuusuf Dhegey. mar labaad soo dhawow. aad baad u mahadsan tahay Jamaal iyo barnaamijkan runtii quruxda badan leh ee gorfaynta gaas iyo gorfaynta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii mar kale aad iyo aad soo dhawow ku soo dhawow muuqbaahiyaha MMTV-na waa barnaamijkii hore aynu arrimo fara badan kaga hadalnay maantana laba buug ayaynu doonaynaa inaynu yaro gorfayno inagoo sidoo kale dabcan kulaad inuu buugaag iyo qoraal ka hadlayno yara geli doona xagga afka Soomaaligana mar walba una meesha ka maqnayn iyo dhaqanka haday noqotaba labada buug ee maanta korfeynaa wax weeye buugga lagu magacaabo Socdaalkii Dheeraa iyo buuggan kale ee Somaliland aad ugu magac dartay hadii aanu ku horeyno daba buugga Socdaalkii Dheeraa goorma kugu dhashay wuxuu igu dhashay waqti hore oo waxaan filayaa markii barnaamijkeeni horena inaan yara tilmaamay 88kii markii dagaalku dhacay bishii May June ayaan ka baxay magaalada Sheekh marka xilligaas runtii ugu dhashay ayaan oran karaa inaan dhacdooyinkii dhacayay baan ka fikiray in aan qoro ururiyo laakiin ma dhicin markan dambe aan dib u bilaabay waa 94kii ama aan iraahdo 93 dhamaadkiidii oo aan markaa u soo guuray magaalada Stockholm markaas aan hadda bilaabay oo dib u bilaabay haddana waxaad moodaa magaca Socdaalkii Dheeraa mala ayaa dheeraaday oo muu dhamaystirmin waxaaba ka soo horeeyay buuggan kale ee Somaliland ayaa ka soo horbaxay oo isagu ka dhashay uun isna waaye kale marka xilligan oran karo rasmi waxaan u bilaabay waxaan oran karaa 94kii 95kii waxaan soo baxay 2007 soo baxay marka waa hagaag waxaad adigu warantaa boqotaad ay u badan yihiin ba xagga taariikhda oo aad u xiiseyso marka sheekadan waxay ku socotaan ka fahmayaan ka akhristay guuleed wiil yiraahdo wiilka guuleed marka ma adiga mise waa qof ay sheekadu ku socoto mar walba runtii waa su'aashaas waa way ogaataa in aniga aan ahay guuleed laakiin marka hore waxaan rabay inaan anigu macnaa biography rasmi oo aniga igu saabsan inaan wixii aan la kulmay oo markaa dhab ah inaan qoro laakiin markaan bilaabay baa waxaan arkay in waxa ila yar haboonaatay in wax si guud u tilmaamaya dhacdooyin fara badan oo xilligaa dhacayay markii dagaalku dhacay in aanan anigu goobjoog u wada ahayn marka waxaan ka soo bilaabay guuleed nin dhalinyaro ah ku dhashay magaalada Berbera deganaa marka anigu Berbera ma deganayn marka waa guuleed kale sax ay noqonaysaa ayuu noqonayaa runtii waana laakiin wax badan oo aniga laftigayga ay soo maray ayaa ku dhex jira oo guuleed matalayo aad iyo aad marka taas inta sheegtay oo kale ee ku saabsan isagu Berbera ku dhashay adiguna waxaad magaalada Sheekh baad ka timid inkastoo isku dhow yihiin ba maxaad marka uga bilowday maxay sababta uga bilowday guuleed inuu ka marka waxbarashada ka bilaabo Berbera waxay kaga duwaneyd Hargeysa iyo Burcaba marka dagaalku dhacay saddexda magaalo runtii waa meelihii culayska iyo inta day ku dhadhow ilaa Gabiley ama ma garanaysa meelihii dagaaladu ka dhaceen marka Berbera waxa ku yar dhacay arin u gooni ah oo Hargeysa dagaalkii baa ka dhacay dadkii intii ku dhimatay waa ku dhimatay waa la kala cararay laakiin Berbera dagaal toos kama dhicin dhibaatada ugu weyn ka dhacday waxay ahayd mid ay dawladdu markaa si bareer ah ay dadkii idoon dagaal ka dhicin ayay dadkii deegaanka u ahaa ayay xasuuq aan loo aabadayn ama loo kala meeldayn ayay kula kacday marka sawirka inaan sheekooyinkan markaa maqlaynay anagoo markaa aan dawladdu kuga hoos jirin dad baa ka imanayay Berbera xanuun badan bay markaa Berbera si gaar ah way dhimashadu Burco way ku badnay Hargeysa way ku badnay dhaawac iyo dhibaato way dhacday laakiin waxay kaga duwanaayeen dagaalkii way ka qayb galeen oo dagaal baa socday laakiin Berbera iyadoo dagaal ka dhicin oo aanay xabadi ka dhicin ayaa dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii tuulooyinka u dhowdhowba dhibaato weyn loo geystay marka waxaan sawir baan markaa qaatay inaan halkaa ka soo bilaabo iyo baxsadku ka soo baxsaday way dad badan baa laga yaabaa dhageysanaya inay Berbera sida uga baxsadeen inay ku ahayd
dee hab aad u adag waayo waxay xilligii June iyo May June July waqtiga August kuleelaha. waa xilliga ugu kulul marka sababtaasaan runtii u doortay inaan ka soo bilaabo Berbera marka waa sax guuleed saas shaqay arday buu ahaa dhibaatada marka ugu weyn ee islahay guuleed marka Berbera ka dhacday maxay ahayd waxa ku dhacay isaga oo waxaan dee sawir ka bixiyay macnaha inaan dhalinyaro 20 jirkii ah dugsiga sare markaa dhamaystay ka fikiraya markaa mustaqbalkiisii ma jaamacad ayaa doonataa jaamacadaha waxa la tagi jiray Muqdisho ama Xamar baa la tagi jiray caasimadda la tagi jiray shaqo xagaad maxaad halkan uga sii gudbi kartaa dugsiga sare dhamaystay isagoo halka hamigiisu yahay ayaa waxaan dhaceen marka waxay ku noqotay maxaa la oran jiray jidgooyin mustaqbalkii oo dhan dabadna wixii uu intii dambe ku dhex jiray ayaan sawir guud markaa ka bixiyay aad iyo aad marka uu ka soo baxay waxa uu soo gaaray ilaa iyo Burca ayuu tagay guuleeda daba xagga dambe waxa kaga soo biiray sheekada Sahal iyo Diiriya Sahal iyo Diiriyana waa saaxiibadii waa nimanka ay saaxiibada ahaa noqdeen ay waliba si aada ugu saaxiibeen macnaha dhibaatadii dhacaysay markuu dhaawacmay oo kale cidii qaadaysay cidii ka warhaysay ayay ahaayeen marka waa dee saaxiibada matelayay iyaguna maxay arrimaha badidoodu oo waxyaabaha waa sidii wax u dhacayeen waayo waxaan garanayaa nin markaa Burca joogay oo ka mid ahaa dagaalada goobjoog u ahaa wuxuu u qaatay in aan anigu joogay Burco marka sawirkaas bixinaya waa sawirro wixii dhacayay ama ka dhacayay Burca dhexdeeda marka guuleed dagaalka isagu muu galaya mise uu galayaa saaxiibkii baa ku dhaawacmaya way dabadeedna marka dambe iyaga ma garanaysa maxay qaadaya iyaga muddo haynaya kadib ayuu guuleed wuxuu u sii baxayaa marka dhinaca hawdka ilaa uu dabadeedna meesha la yiraahdo aadan maayara iyo ilaa haddana xarshin oo galbeeda uu tago oo uu marka dambe ku dambeeyay Dulcad oo ahayd meeshii ugu weyneyd qaxootiga ahayd marka waxaan ugu talagalay in sawiradaas oo dhan uu demeteli karo oo wax ka sawir ka bixin karo ilaa uu dabadeedna marka dambe tagayo ilaa Itoobiya iyo Djibouti marka bug taariikh marka fariinta aad sidaad u xambaarsan yahay maxay tahay buugan wuxuu bixinayaa runtii qofka akhriya wuxuu waxyaabihii dhacayay ama dadku waxyaabihii ka sheekaysanayeen arrimo markaa dadku ku ahaa xanuun badan ku hayay dhulkii la marayay oo dadku ay ku qaxeen dad aan weligood arag xadka oo xadka tegay Itoobiya dad aan weligood arag oo Itoobiya tagay ayuu isagu metelaya isaga ku cusubtay waxa oo dhami way ku cusub yihiin ilaa uu Djibouti iyo Itoobiya dhexdooda xitaa lagu xidhay oo uu xarig galayo oo uu ka soo galayo dhinaca galbeedka ka soo galayo Djibouti xitaa nolosheedii inuu sawir ka bixiyo waxa soo dhamay waa wax ay dad badan oo maanta noolay oo maanta dad waaweyn oo da'deeda iyo wax ka weynba ay garanayaan marka dadkan dambe waxay u noqonaysaa waa sawir film daawanayo صح marka dhacdada Djibouti lagu xidhay bal nooyara dulmar Djibouti waxa lagu xidhayaa horta Djibouti sideedaba lama ogola qof aan haysan sharci Djiboutiyaan qof aan haysan lama ogola laakiin sawirka ugu weyn waxa weeyaan yani waxaan la ogolaan inuu joogo dhex joogo laakiin inuu ku soo galo inuu haystaa visa aan bade bas soo galay oo Djiboutiyaan uu sita visa Djibouti dad badan oo markaa aan sidan visa Djibouti ayaa soo galay oo ka soo galay dhinacan Saylac iyo dhinacan Lawicado dad badan waxay ka soo galeen xagga Itoobiya ka soo galeen marka waxa runtii aad u xiiso badan askartu waxay aad u kala taqaanay dadkan dadku waa Soomaali anfarta marka laga saaro waa Soomaali haddana waxay yaqaaneen qofka aan Djiboutiyaanka aan ahayn waxa laga yaabaa inay si gaar ah u garan jireen sida doona baa ku gartaan iyo markii la soo galayo Djibouti oo iyaduna runtii culays weyn ahayd waliba dhinaca galbeedka marka laga soo galayo xaggan kalena la mid bay ahayd Lawicado laakiin xaggan uu guuleed maray waxa weey dawan leh iyo gariile meesha la waxa Itoobiya ka soo galay marka waxa ku dhacday runtii dhibaato weyn halka ka qabsatay oo uu soo lugeeyay oo adigu rafaad buu ku soo galay waa la xidhay oo markii warqada laga waayay ayaa la qabtay oo la xidhay waxaana uu tilmaamayaa garashada runtii reer Djibouti waxaad moodaysay xagga askarta berigi daba ma garanayo laakiin beriga hore guuleed wuxuu la kulmayaa in ay qof garanaya way ixtiraami jireen askartu laakiin laaluush xaami qaadan jirin marka mid kamida waxa lagu sii deynaya garasha lagu sii deynaya laakiin isagu cid uu ka garanayna ma jirin marka saas lagu xidhay haddana markii dambe Djibouti dhexdeeda ayaa lagu xidhayaa Rutusmade ayaa lagu xidhayaa oo
dee halkaasuu habeen ku xidhnaanaya Rismaga labaad. marka waa dee sawir badan bay bixinaysaa aad iyo aad Djibouti halkee ugu xigtay markaa Djibouti marka dambe wuu soo noqonayaa soo noqodka uu soo noqdo waa marka dambe wuxuu go'aansanayaa inuu dagaalkii dib ugu noqdo dagaalkaasoo ugu dambeyn berbera markii la soo gelayay ugu dambeysay 19 bishii January ee dib loo qabsaday ama aan idhaahdo markii ugu horreysay la qabsaday berbera iyo waxa isku beegantay markii dawladdii ay ka burburtay Muqdisho marka ciidankaa soo galay ayuu guuleed ka mid ahaa ee dib u soo galay magaalada berbera aad iyo aad aan soo yar qabta buugga waxa jira daba aniga meel yaroon aad u xiiso badnayd oo ku jirta buugga sida igu qabo isaga sahli markay israacayaan waxa weeye maansaha tarawiiliyahay buu soo qaatay ayuu soo qaatay markay ka bixi doonaan xadka ay ka bixi doonaan burco ka talaabayaan bal halkaas maxaa kala qabsaday ay ku madartay weydiinayaan labada is saaxiibo waxa cusbayd runtii xilligaa oo dareenkeedu jiray oo dad badan ay garanayaan oo dhageysan jiray dadka oo dhan may wada dhageysan jirin laakiin dadka qaar baa aad u dhageysan jiray gubaabada xagga gubaabada gabayadii hadraawi maansooyinku tirinayay marka 87kii aan ilaahdo sanadun ka hor markaa ayaa maanso gaadhay dad badan ayaa soo baxday maansadaasi wax badan bay ka hadlaysay oo laga yaabo imika marka la dhageysto inaan dadku aanay dee dareen badan aanay u lahayn laakiin berigaa dareen aad u badan macna dareen fog bay dadku dareemayeen oo waxa uu ka hadlayay way taabanaysay marka labadan dhalinyarada waxay isweydiinayaan wax fara badan bay isweydiinayaanoo maansadaasay xasuusanayaan marka waxaa ka mid ahaa way dheertay oo dee halkan ismay wada weydiino in yar bay xasuusteen wada qaybsanay marka waxaa ka mid ahayd ninka ii daraadow amba waa u darsanayaa dibindaabiyadaadee tirtirsiga hayga dayn carab dananka laasima wacdi dawdab lagu yidhi ninkii ii dudubiyow kuma deexda hadalkee wax kaloon daneeyoon ku damqado ma haysaa macnaha wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay waxaan igu dhacaya ma dhibkan igu dhacaya maba aha dhibaatee wax ka daran keen dhib ka badan igu samee kuma baaba'ayo sidaa macnaha wax kastood samaysaa waxay keenaysaa un inaan kasii qaado dardar ayay marka dambe arrinku u socdaa waxay ku jirtaa talo baadaan si fiican kasoo xasuusan maase waxa jirtay naatrawi Allah naxariistay oo kaga hadlayay isaga Ilaahay naxariisto dhawaan dhintay uu lahaa madartay haddaad waxa samayso waxa kala sameynaya ma maasadaasa wayada waxaan soo baxay sanad ka hor marka dagaal waxay dadka qaar marka ay dadka xagga taban ka eegaya waxay oran jireen dawad dadka waad sii ku haantay oo magaranaysa waad sii waxaan aad sheegto dhan way nagu dhacay la markaa may dhicin 87kii may dhicin marka uu tirinayo laakiin wuxuu mala awaalay waxa soo dhici kara waxyaabaha dhici kara dawladdu waxay samayn karto marka dawladdii buu leeyahay haddaa wax kasta samaysaan sax waxaan ma istaagayo haddaad cawska ha baabisan gidaar cawska cunayna baa ku jirtay marka wuxuu tilmaamayaa in wax kasta oo culays oo dawladdu keentaa oo lagu sameeyo shacbiga si uu looga gilgilinayo in laga gilgilinayo la dhamaanay marka waa halka isu tilmaamayaan labada dhalinyaradii ku damqado ma haysaa duni aanan weli arag nin idaawad siiyo kuma arag daraandaro midabada dalxiiskee ku dalaysan dheehee duxla-aanta gadatee wax intaas ka dooroon oo la dugsado ma hidisaa marka waa maanse dheer oo runtii wax badan ka hadlaysa aad iyo aad oo uu mar dhaaranayo mar uu dadka tilmaamayo ma garanaysaa sida hadhow wax u dhacayaan adigu sawir badan bay bixinaysaa runtii maansadaas aad iyo aad kadibna way ka tallaabeen oo waa kuwa dagaalkii galay kadib halkuu uu sii socdaalay guuleed markii dambe wuxuu tegayaa dulcad waa sida marka hore u tilmaamay dulcad laakiin kadib buu ka tegaya markaa jigjiga iyo diridhaba marka la tegayo dadkii xilligaas soo maray way garanayaan meel la yidhahdo xaadow oo uga dhow jigjigaba u dhow ayaa dadku aanay dhaafi jirin oo dhib weyn ka taagnayd halkaasaa runtii dhibaato uu kala kulmayaa wuu kasii baxayaa diridhaba u tegayaa diridhaba markaa magaalo yara furan oo aan dadka gudaha ku jira dhibaato looma geysan jirin laakiin markii dambe way jirtay in dadkii lasoo raafay wuu sii dhaafaya waa kadibadna Djibouti tegaya Djibouti buu kasoo noqonayaa Djibouti runtii dhibaato kale muu kulmin laakiin dee xarigyadaas uu kala kulmay iyo dee
meesha kharash badan baa meesha dee hawshu ma yarayn marka uu soo noqday ولد ما دخل بورتا تجي مساء صبيح بعد marka hore cali sabiix buu soo maray oo gariilu soo maray dabada cali sabiix buu soo maray cali sabiix oo magaalo waxoogaa la eg halka waxa uu kala kulmaya dad badan buu kula kulmaya Djibouti markuu soo galo dabadana waa tan la xirayo muduuse ku nooriyo degan yahay noqodkas uu soo noqday ducad buu soo noqonaya uu guursanaya marka guurka kadib baa waxa ku dhalatay in aanay noloshani anfacayn dulcad qofkii garanaya baa garanaya ama ku guursan ama ku guursan meel waxay ahayd runtii waa la degay laakiin qaxooti ah waayaheeda leh bilowgii hore waliba dee dib weyn ka taagnay laakiin markii dambe waxaad moodaysaa dadkii inay la qabsadeen oo iska degeen isagu qabsigaasu markaa aad uu doonayaa inaan halkan aanu kusii noolaan dee wax u yaala aanay jirin ee ay tahay inuu dagaalkii dib u galo ama ha ku dhintaa ama ku noolaadee markaasuu dib u soo gelaya marka dagaalkii wuxuu noqonayaa dadkii ku guuleystay gelitaankii berbera laakiin berberena markaa waxaa ka qabsanaya dhibaato oo dadkii soo galay baa dagaal la dhex marayaan dayday baa dhacaya wax dayday loo bixiyey oo berigii hore la odhan jiray ilmo dayday baa la odhan jiray laakiin odayaashaa diiday oo yidhi ilmo dayday ha odhanina waa dayday uun waayo annagu maanu dhalin daydaygan daydayga qolada xamarna magac kale u yaqaanaan oo magacyo kale u yaqaan laakiin daydaygaas macnaha waa dadkii oo de islaynaya waa gaangis ayay noqdeen ciidamadii soo galay baa gaangis noqday dabadeedna wuxuu odhanaya dagaal ma gelayo dagaal dambe iima yaallo sidaasuu kaga soo baxaya dee Afrika buu ka soo hajiraya markii dambe Suudan buu yimi dee socdaalku wuu dheeraayo inuu markii dambe Ingiriiska tegayna waa laga yaabaa gulid ma kalmata noor fadhiya Ingiriisku ma la tegay ay degay waa Sweden buu ku nagaadeen filayaa waa si wanaagsan marka buugan de kule taariikhdaas dheer baa ku dheehan oo kule dad far badan baa iska dhaxri karaan u malinaya marka buugan ayaa akhrisan karaa runtii waxa laga yaabaa waxaan aad u jeclaysan lahaa dadka aan dhibaatooyinka iyo waxa aan ka sheekeynaya aan joogin iyagu hadday akhriyaan macnaha sawirkee u soo baxaya falcelinta waan jeclaan lahaa runtii inaan wax ka ogaado waayo qofka joogay waxaa laga yaabaa inay sawirkii da wuu la garanayaa wuu la fahmayaa wax badan buu fahmayaa oo isaga xitaa ma garanaysaa taabanaysaa laga yaabaa inay ku dhex jirto laakiin qofkan aan waxaaba u joogin sawirkeebuu qaadanaya taasi weli ma garan karo runtii waanan u baahnaa aad baan u jeclaysan lahaa dad badan hadday oo aan xilligaa joogin oo dee ama yaraa aad u yaraa ama aan xilligaa dhalanba inay sawirka bal ka qaadan karaan nooca uu yahay marka imika bal maxaa isleedahay farqiga way u dhaxeeyaan tusaale ahaan berigaasi imika berberada kuley waa tagtay waan filayaa berigaa iyo imika sida ay tahay haddii la isbarbar dhigo dad badan wax leeyihiin matalan imika wadan DB wal gacanta ku haysaa ay kastoo inuu siyaasad ka hadlayn laakiin horumar hadday noqoto iyo magaalada berber marka iyo imika si lagu noolaa beriga maxaa farqiga u dhaxeeya isleedahay farqi weyn baa u dhaxeeya oo horumarkan kale waa gooniyo nabadgelyadu dee markay mar hadday nabadgelyo tahay waxaa imanaya horumar wuu imanayaa oo dadkaaba dee wax dhisan kara bacmushtar baa imanaya oo dee taasi waa arrin kale laakiin arrinka berigaa jiray wuxuu ahaa arrin aad runtii ma garanayo dadku siday u fahmi karaya dadkii joogay way garanayaan laakiin qofkaan joogin waxaad sawirataa uun marka aad istiraahdo kaba soo qaad waxaad istiri berbere ka bax waxaad hargeysaad u socotaa controlka berbere markaad soo istaagto waxa lagu weydiinayaa warqadii dhaqdhaqaaqa warqadda dhaqdhaqaaqu waxa weeye warqad ogolaansho ka soo baxday xafiiska NSS-ta ayaan u malaynaya ahaan jirtay ma garanayo sirdoonku bay kulliga ka soo bixi jirtay warqaddaa haddaanad sidan ma baxaysid marka migration ma waddanka luu tegayaa qofku intaasaan iyada ku daynaya macnaha qaabka ay ahayd waa qaab aada u kakan oo u baahan in research dadku hadday si daacad wax u eegayaan wax badan ay baari karaan waa la odhan karaa dee waxaa jiray dhibaatooyin oo dee dowladdu waxbay ka baqaysay waa la odhan karaa laakiin heerkaa la gaadho qofkii la yidhaahdo warqad soo qaado oo ma bixi karaysid ama hargeysa markaad gelayso controlka hadday shanta kuugu dhacdo gaadhigu ma gelayo ma gelayo gaadhigu halkan seexo sawirka noocaasa de waxaan malaya ma garanayo dad badan wax badan bay isweydiin karaan ma laga yaabaa aad iyo aad taa waxba dib ugu noqon mayno laakiin waa aad bay u kala duwanti aad bay u kala duwanti xagga wax la soo degista badeecadooyinka oo kale sidee ahayd marka waxaan runtii si fiican u garanayaa 80-aadkii ayay berberi waxay gaadhay heer wanaagsan oo
waxa la oran jiray franka fluto la oran jiray oo aan liisan malaa ku xidhnayn runtii taa waa laga aqoon badan yahay laakiin waxay gaadhay berberi baa mushtarku inuu ganacsi badan oo waliba carabaha ka iman jiray inay aad ganacsigoodu soo kacay laakiin mar kaliya ayaa la joojiyay oo dawladdu joojisay dabadeedna joojintaas waxay keentay in dadkii lagala wareego wixii ay la soo degayeen baabuur hadday tahay xitaa wixii ay magaranaysa hadday iibinayeen in laga qaadaba xoog lagaga qaado intii dambe markaa waxay ahayd magaalo laga guuray baan oran karaa magaalo may ahayn mar wax lagu qaday ma yani ma cashuur ma inuu qofku bixiyo cashuur waxaan markaan dib u yar baaray runtii aan markaa waan yaraa ma garan karo oo wax jiray ma garanayn laakiin dib markaan u baaray waxa la igu yiri marka hore dawladdu waxay ogolaatay in qaab aan lahayn liisan aan ahayn oo liisanadii la qaaday ganacsiga aan ahayn in lagu keeni karo baabushir macna ganacsiga lagu keeni karo markii dambena waxay soo rogtay in qof aan liisan aan haysan inaan waxba soo rogi karin tiina waxay noqotay inaan cadaalad markaa dadkii loo sameeyo dad gaar ah oo liisankii la siinayay arrinkaas markaa wuxuu keenay berbere wuxuu ku keenay runtii intii dambe 28kii iyo wixii ka dambeeyay berbere waxay iska ahayd magaalo aan oran karo macna magaalaba may ahayn wixii de ari xoolo laga dhoofilayo iyo waxoogaa ka soo dega mooyaane may ahayn sida ay ahayd 79kii 80kii 81kii way soo kacaysay okay marka dadka noloshooda si isku bedeshay marka liisanadii kale waxay noqotay magaalo laga guuray bay noqotay runtii idaguna sheekh baad gneedin sidii marka ma dareentay way saameynaysaa marka dadka ilaa hargeysa saameynaysa way hargeysa waxa ka soo dega berbera ayaa da hargeysa lagu iibinayay aad marka way aad bay u saameynaysaa runtii halkii marka waxa laga soo degi jiray marka isla berberun baa lagala soo degayay laakiin wixii baa noqday wax kooban oo xitaa waxay noqotay magaranaysaa in wixii qaali garoobaan in dee wax kooban bay noqotay oo aad u magaranaysaa maxaa la xakamaynayo oo laga yaabo in xilliyada qaar hadii la waayayba bariis ama baasto ama maxaa sonkor marka way runtii qaab adag bay ahayd laakiin waxaa lagala soo degayuun berbera waxaase bilaabmay si sharciya meelo kale oo sida maydh xiisoo kale iyo maydh oo kale ayaa wax lagala soo degi jiray laakiin kontrabaan bay kuwaas u badnaayeen iminka ma shaqeeyaan malanaya maydh xiistoona may waa xagaag marka sheekadaasi runtii aad bay u xiiso badan tahay guuleed marka waxa la socdaa ka dheeraa marka tan imka aad qorto wax falcelin oo buugan ka soo noqday runtii dad badan oo bilowgii wax ka qoray baa jiray oo akhriyay buuga akhriyay waa mar hore waa markuu soo baxay beriyuhu soo baxay qoraallo laga sameeyey oo dad akhriyay ay ka soo falceliyeen way jireen dad badan oo aanu ka sheekaysanayna way jireen oo runtii de marka warisba ii weydiiyo yidhahdo qof kale aad ka hadlaysa maadiga sax laakiin intan dambe waxaa laga yaabaa inaanu lambar badan oo dadka gaadhay dee buugaganimka way fara bateen oo runtii berigaa uu soo baxay waa laga yaaba inay koobnaayeen laakiin iminka buugagaa fara badan buugaga weliba mala awaalkaa badan kuwa jacaylkaa malaa aad iyo aad loo sii marka maan arag runtii intan dambe cid ka hadlaysa maarag marka adigu sayid axmed waxaad ku kooban tahay taariikhda mise waxyaaba kana wada qortaa bisada aan ku lahaa bisad aan batay barnaamijkii hore aan sheegayay oo kale waxaa ii soo baxday waxaa jirtay xilli aanu aniga iyo niman aanu saaxiib nahay oo maxamed xirsi guuleed iyo muuse dalmar iyo yuusuf xaaji cabdilaahi xasan iyo ayaa waxaanu samaynay hab yaro tabliiq oo yaro tabliiqayn jiray Sweden marka magaalooyin badan baanu soo maray Borlänge aanu tagnay waxaanu tagnay Malmo iyo Göteborg waa magaalooyin aad u kala fog qofkaan macna garanayn uu garanay ma isuma dhawaa waayo Malmo markaanu tagnay oo kale isla habeenkii baan ka soo noqonay Stockholm waxay u jirtaa waa 6 saacadood 7 saacadood baa la soconaya iyo Göteborg oo kale waxaanu tagnay maalintaanu tagnay haddana ka soo noqonay oo duruufo badan baa iska jiray marka bixitaanka aanu meelo badan tagnay dadka waxaa nooga soo noqday in caruurta aad loogu baahan yahay buugag xagga caruurta ah marka berigaas ay ugu dhalatay runtii buuga bisadii aan batay laakiin dadka qaar waxay u qaateen inaan siyaasad ka hadlayo bisadii aan batay marka ay yiraahdo waxa laga yaabaa inay u qaataan siyaasad laakiin waxay ahayd sheeko aan ugaan sameeyay oo caruurta macnaha in lagu dhiirigeliyo inaanay cid walba iska raacin in ay taxadaraan oo aanay waalidkood ka fogaan markay yaryar yihiin macnaha dhib kasta ay la kulmi karaan weliba dee dhulkan qurbaa marka buuga oo kale dib u ka duwanaa taariikh mu ahayn kuwa kale markaan ka fikirayaana runtii waa laga yaabaa inay afka u bataanba af Soomaaliga inuu geli doona isaga laftarkiisa waa sax waxa guuleed halkaas inuu kaga gudbeynaa buuga guuleed iyo socdaalkii dheeraa buugan kale ayaa isaguna jira oo isaguna qudhiisu taariikh ah
aad bay runtii oo muhiim in la ogaado tan waxa weeye xorriyaddii 60kii iyo xilligii ka horeeyay oo buugan waxaad bixisay Somaliland ayaad u bixisay marka waxa uu ka hadlayaa waxa weeye taariikhdii hore intii hore weeye buugan isagana goormaad aliftay laftarkiisa waxa marka hore waxa horeeyay buugan socdaalkii dheeraaka igu dhashay kaasoo ahaa laakiin buugani wuxuu ka dhashay intii aan wax baarayay taariikh badan oo xiiseynayay ayaan aad librariyada Suudaan waxaan ka helay wax fara badan waan la yaabay markaa runtii aad baan la yaabay wax badan oo aanan hore u ogeyn dugsi hoose ilaa dugsi sare ka baxay intii wadanku caadiga ahaa markaa wadan xidhan buu ahaa oo aan la ogolayn in la akhristo waxyaaba qaar buugaga qaar lama ogolayn lama keeni jirin hadday yaallaana lama ogolayn qofku dee haddii lagu arko qabiil ku qoran oo magac qolo ku qoran lama ogolayn marka buugaga badidoodna waxay ku qoraayeen buugag dad ajaanib macnaha ay qoreen cadaankii dhulka dayimi ama talyaani ha noqdo ama ingiriis ha noqdo ama jarmalba ha noqdo ama faransiisba marka waxaan helay buugag fara badan waan yaabay marka oo taariikh badan ku jirto oo ka baxsan kan am Lewis la dhahdo Lewis ka fog Lewis waa shalay Lewis waa meelaha albaabada aan marka hore ka galay buu ahaa dabadna isagu muxuu raac sameeyay way raac waa muhiim raac uu sameeyay baa marka ila fogaaday waxa kale oo kamid ahaa nin loo jiray Dry Style oo ku dhintay Gabiley baan filaya barigi dambe oo isna Ingiriis ahaa isna buugu qoray baa jiray oo isna raaciisa raacay waxa ila gashay marka waxaan arkay heshiiska ay wada galeen Victoria gabadhii loo oran jiray ee boqorada u ahayd Ingiriiska iyo boqorkii Mililik loo oran jiray boqorkii Mililigii labaad sax 1897kii heshiiska galeen waxaan ka helay Stockholm sax marka yaab bay ugu noqotay waxaan markaa doonay bal in aan walaga yaabo dad badan Somaliland maanta jirta inay yiraahdaan maya Somaliland lama aqoonsana sheeko badan baa iska jirta laakiin ka hor maxaa jiray waxaan arkay in aanay waxa ay cadaankii ajaanibku qoreen mooyaane Soomaalidu waxa ay iyagu qortay oo daacad ka ahayd oo ay ururisay inaanay jirin marka anigoon taariikhyahan ahayn ayaan idhi halkaa inaad u bareedhaa way dhowr qof baan runtii ku dhiiri geliyay oo dad waaweyn ahaa oo macallimiin soo ahaan jiray oo halkan deganaa laakiin may xiisaha may qabin dabadna waxaan idhi adiguba ku dhaqaaq marka wax badan baan isugu geeyay runtii buugan waxaan sa arkaa iminka inaanay ahayn xitaa dhibic yarna ayna farka qodnay oo farka qodnay waayo markuu soo baxay waxaan ku hamiyay xitaa niyadeyda ku jirtay wadankii baan islaatay qofka aan islahaa la kulan xilliga ah ilaahay uu naxariista wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Cigaal sax uu jisi aan ula kulmi lahaa ma garanayo siyaasadda ma weydiiyeen صح laakiin wax badan oo uu maanta la dhintay ayaa jira oo bariga ay soo baxay oo taariikhda inta dambe ee kontomaadkii 55kii 54kii ilaa 60kii waxyaabaha dhacayay isagu wuxuu ahaa nin active ka ahaa oo siyaasiya oo nin dhalinyaro ah oo ku dhex jira buu ahaa marka wax badan baan jeclaa inaan weydiiyo laakiin buugu wuxuu soo baxay markuu geeriyooday wuu dhamaa waa 2002 marka cid kale waqtigii Cigaal loo naxariistay aba waqtigiisii dad kale jira meena jiray waxa kamid ahaa isna oo cajiib ahayd ilaahu naxariistay Cabdi Xasan Buuni ilaahu naxariisto baarlamankiisna kamid ahaa ugu horeeyay Somaliland imika waxaan malay baarlamankii Somaliland ay ku noolaa sidaan filayo hayga raale hadii qof nool u jiro 3 bay ahaayeen 3 markaa buugan qorayay in badan baa noolay dhowr baa noolaa kuma suurtagelin laakiin aad la kulanto waxaan la kulmay nin Maxamuud Samti Garaad la yiraahdo waxaan kula kulmay Hargeysa waxa uu ii saxay wax badan oo buuga ku jira buugan wali kan kuma jiraan ka dambe ku jiraan oo dib baan u qoray daabacada kale ku jireen ninkaas wuxuu kamid ahaa baarlamaanka isla kamid ahaa nin xooga buu ahaa markaa oo wuxuu deganaa hodeel la yiraahdo Gargaar oo Hargeysa ku yaala ayaan kula kulmay waxa jiray markaa rag badan oo dibadaha joogay oo noolaa laakiin oo Cabdi Xasan Buuni uu kamid ahaa laakiin imika waxaan qiyaasayaa inaan cid ka noolayn 3 ah cid toos wax uga qortay ama qoraalo iyagu ay sameeyeenna wali ma arag okay waan gartay marka waxa kale ka hadashay yani meelaha qaar kood wax ku dhalaysa Ingiriisku inuu Somaliland wax u qabanin ayaa ka dhalaysa taa maxaa loo jeeday
waa waxyaabaha runtii imika markaa qorayay wax badan baa dee ii soo baxay oo ku dhaliilayay oo dee aan laakiin waa laga yaabaa imika inaan wax ka duwan dareemayo sababtoo ah waxaa jira xagga waxbarashadoo kale waan ku dhaliilayay oo waxaan la yaabanaa 80 sannadood bay dalka ka talinayeen dabcan dagaalo waaweyn baa ku dhacay oo xilligii maxamed cabdullaahi xasan dagaalo waaweyn baa ku dhacay laakiin de kadib waxaan jeedaa 1920 wixii ka dambeeyey muxuu wax u qaban waayey iskuulla muu dhisin xitaa maamulada kale may dhisnayn waxyaaba badan baan runtii berigaa ii soo baxay laakiin waxaan dib ka ogaaday waxbarashadoo kale shacbiga dadka reer Somaliland shicibka ama odayaashii markaa ama dadkii wax kala garanayay ayaa diiday waxaanay ku diideen arrin ay ka boodeen oo xitaa ilaa xilligaa 1800 iyo dhammaadkii ahayd markan dambana 1910kii taariikh baa dhacday kaniisadaha yimi kaniisadahaasi saameyn bay markiiba inagu yeesheen dadku markaa way ka dagaalameen waxbarashadii halkaasay ku istaagtay marka ingiriiska iyo talyaanigu labaduba dadka waxbarashada wadaa waxay ahaayeen dadka commissionerka ama dadka diimaha fidinaya ayaa waxbarashada wadi jiray marka ingiriisku maadaama oo uu arkay inaanay Somaliland dadku ogolayn uu ka istaagay marka wada san inagu mulcaamada wax lagu bilaabi jiray dusha quraan lagu bilaabi jiray iyaguna ay ka bilaabeen xagga dabadeedna mar dambe oo dhowr iyo soddonkii buu dib u bilaabay bal in la kala saaro arrinta kaniisadaha iyo waxbarashada oo waliba waxbarashada wuxuu doonay markan dambe waa taariikhaha dambe markan dambe ogaaday 37 wuxuu doonay in uu far Soomaali wax ugu dhigo si aan uga boodin inkastoo laga booday iyada lafteeda waa far Soomaaligii uu doonayay in la qoro oo lagu dhigo wuxuu noqday fartan Laatinka marka Laatinka laakiin far Soomaali markaa uu fikrayay laakiin se waxa ka hor yimi iyada kacdoon weyn oo aynu ka tilmaami karno 37kii dhibaatadii ka dhacday Burco oo laba qof ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen oo diidayeen waxbarashada laakiin fartan uu wado sheekadan uu wado ay doonayay dib u bilaabo oo markaa uu isagu doonayay inuu dib u bilaabo oo waxa la hadlay Suudaan oo kale Masaarid oo kale waxa la rabay dadkii in dib la yiraahdo war waxbarasho la'aan ma soconayso waxa la isweydiiyay Uganda oo kale Tansaaniya Suudaan Masar intaba waxbarashadu waxay maraysay meel sare Soomaalidu ba laakiin Somaliland iska daa wax kale dugsi sare markaa kama jirin xitaa mid dhexe kama jirin 37kii goorma asuulkan markaa dugsigan sheekh goorma la bilaabay waa 40kii wixii kadib waa wixii dagaalkii waa 40kii baa loo bilaabay si ku ogoladeen ka markaa dambe runtii waxa yimid dad badan oo ka yimi Suudaan oo Soomaali ah oo waxa soo galay meesha waxa markaa jooga 37kii oo la dhaawacaya Maxamed Axmed Cali محمد أحمد علي مركز جوجا أيام مركز جوجا واحد جوجا واحد يمين اسمه محمد شراء محمد واحد جوجي محمد كل هذا جاندي مركز واحد يمين دور صومالي وكو كبلابين محي كبلابين يجدد أهل كذا أما عروتو دي أما ولا له محمد أحمد علي كل دي عبد الرحمن طور لا نحرسته ولا لك يبغى كبلابين صح إنه إنه ده مسألة لو جبودن صح جاندي وكلا واحد فلايا سنن ولالكي أما أيام فلايا نسلو كبلابي محمد شري لفتي سعيد ودويد بكبلابي مركا واحد كبلابين تكوي كبلابين مركا سير أنا لو جبود هذه قرية كبلو بلده واحد سوق لك حسن يعني دجالو iyo sidoo kale in la dagaalamay Ingiriiskii oo halkan Sheekh Bashiir oo kale ayaa ku jira iyo marka Sheekh Bashiir suulo dagaalam jiray hadii la isbarbar isagii daraawiishtii matalan Xasan oo kale laba waqti kala duwan Sheekh Bashiir ilaahay oo naxariistay taariikhdiisu waxay u baahan tahay runtii aad loo baaro bari dhaweydna runtii waan isku daynayba oo waa laga yaabaa in dib loo baaro waxaanu ku dhashay xilliga kacdoonka Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo Taleex waxaan qiyaasay inuu Taleex ku dhashay muddo kale aabihi